aabe qalbi adag oo la noolaa xaaskiisa iyo gabdhihiisa wuu garaacayay hadduu maqlo codkooda oo kor ah xitaa hadday oynayaan mar walbana guriga waxa u yaala fiilo koronto ah wuxuuna uu goondinayay inuu ku qabanayo hadday qalad sameeyaan inkastoo hantidiis aad u badneed taasu uu ka helay ganacsigiisa qaaliga ahaa gabdhihiisa wuxuu amray weliba iyagoo aad u yar inay soo nadiifiyaan jaranjarada dariska si ay mushaar ugu qaataan ayna ugu soo gataan dharkooda iskuulka xaaskiisana walaalaheeda waxay u soo gadeen sharqaan si ay ugu shaqaysato ayna u bixiso lacagta gabdhaheeda intay iskuulka dhiganayaan sannado ayaa soo maray iyadoo ay xaaskii 3 gabdhood ay ku jiraan cadaab dhib iyo cabsi joogto ah ilaa uu aabbaha qalbiga adkaa uu ka aaday cimro warbixintii dhan waa la waayay waxay waceen walaalihiisa safaaradda Sacuudiga iyagoo weydiinaya laakiin cidna ma ogeen meeshuu jiro bilooyin kadib waxay xaqiiqsadeen gabdhaha aabbahooda naxariislaawo inuusan soo laabaneen waxay la qeyliyeen farxad wuu dhammaaday cadaab iyo dulmi 5 sano xaaskii gabdhaha waxay ku noolaayeen sidooda ilaa ay dacwad geeyeen maxkamadda ayna sheegeen in la weysan yahay rabaana inay helaan hantidii uu ka xarimay sidaana ay ku xaqiijiyaan riyadooda maalmuhuna waxay noqdeen si iska caadi ah ilaa ay timaadeen maalin gabadh weyn saaxiibteeda waxay ugu yeertay xafladeeda arooska oo lagu qabanayo masaajidka gabadha waxay dukatay 2 rakac oo ah tahiyatul masjid iyadoo u socotay meesha xafladka dhacayso gadaasheeda ayay fiirisay waxay aragtay aabbaheeda oo dharkiisa jeexjeexan yahay uuna tugsanayo way la yaabtay wayna u cabsatay laakiin way u tagtay wejigiisa ayay fiirsay iyadoo gariiraysa laakiin muusan garan kadib waxay aaday imaamka masaajidka wayna weydiisay wuxuu dhahay waxaa imaadeenin wuxuu noo sheegay in lagu daaweynayo isbitaal markuu ka soo baxay wuxuu dhaqaayay guriyaha gabadh weyn waxay aaday aabbaheed waxayna ka ogaatay inuu isbitaal ku jiray safaaraddan inay u sheegtay inuu magaciisa qarsan yahay iyo inuusan waxba ka xasuusan isaga shakhsiyaddiisa kadib way soo dhoofiyeen oo Masar ayay ku soo celiyeen way oysay gabadhii weyneed wayna weydiisay midkaan jabsan oo gacantiisa u taagayo si uu xoogaa lacag iga qaato miyuusan ahayn aabbaha ku sigtay inuu marar badan i dilo hooyadeedana iiga difaacday gabadha way soo laabatay wayna u sheegtay hooyadeed iyo walaalaheeda waxa dhacay waxay dhahday hooyada ku soo celiya gurigiisa way diideen ra'yiga hooyada iyagoo ka cabsanaya caafimaadkiisa uuna u soo laabtay hantidiisa iyo cadaabkooda laakiin hooyada waxay ku adkaystay in la soo celiyo waxayna dhahday hal argoose ayaa ku filan alle ayaa ka arguday hadda wuxuu naga mudan yahay naxariis wallaahi farxad ma dareemaysaan isagu aabihiina wadada ku xiran yahay xusuusta xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam man laa yarxam laa yurxam waman laa yaghfir laa yughfar lah way oysay gabadhii weyneed iyo labadeeda walaalo waxaan u raacay aabbahood waxaynu ku soo qaadeen gacmahooda waxaan ku soo celinay gurigiisa isagoo sharaf leh oo karaamaysan ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن
إن الله عزيز ذو انتقام.